Assalaamu calaykum mudanayaal iyo murwooyin soo dhowaada dhammaantiin meel walba oo aad daafaha dunida ka joogtaan oo ku soo dhowaada Machadka Darwiish Academy. Qaybtani waa qaybta asaasiyaadka. Saddexda qaybood ee ah asaasiyaad, qayb dhexe iyo qayb sare. Mid walba mowduucyo gooniya baan kaga hadlayaa. Mowduucyadaas oo dhan ma rabo inaad ku jahwareertid sababta oo ah waxaan rabaa inaan suuqa kaaga dhigo wax fudud. Machadka Darwiish Academy wuxuu u taagan yahay in uu suuqan oo dhan fududeeyo. Marka qaybta asaasiyaadka ah muuqaalo kala duwan baa ku arki doontaa. Muuqaaladaas oo dhan nuxurkooda asaasiyaadka marka laga hadlayo ereyada ugu badan oo kusoo laalaabanaya dhagahaaga baan rabaa inaan kula wadaago erey bixintooda ama waxa la dhaho terminology. Wax walba marka la baranayo waxa ay leeyihiin ereyo u gooniya oo dadkaas waxa baranaya isla fahmayaan. Dadka dhakhaatiirta ah waxa jira qofka dhakhtarka markuu warqad qoro waxa qofka caadiga oo adag tahay marka qaar inuu akhriyo balse qofka farmashiga jooga wuu akhrin karaa. Qofka lawyerka sidoo kale waxa jira luqad gooniya uu ku hadlaan ama ereyo terminology gooniya iyagu ereyo bixin ay isla garanayaan. Dadka ganacsatada ah oo dhaqaalaha barta waxa jira kulliyadda dhaqaalaha ku jira ereyo gooniya ay adeegsadaan. Marka laga hadlayo marka suuqan forex-na waxa jira ereyo gooniya oo marar badan dhagahaagu maqlayaan ama dhagahaaga ku dhacaya inta aad cusub tahay. Marka saad ugu dawaqid waxaan rabaa inaad terminology-ga ereyadatan aad baratid aniga oo erey bixinta luqadda Soomaaliga kugu qoray. Waxaan ka bilaabaynaa qodobka koowaad. Waa maxay candlestick? Candlestick waa tusiye ku tusinaya waa tusiye ku tusinaya suuq masalba mise waa buy buu ku tusinaya waqti xaadirka kan. Candlestick hadii lagu dhaho waa maxay? Waa tusiye ku tusinaya suuq masalba mise waa buy. Wuxuu kaloo ku tusinayaa marxaladda uu suuqu ku jiro. Jahwareer buu ku jiraa masalba mise waa buy. Waxa ku tusinaya waa candlesticks. Candladuna waa shaxdan dhan aad aragtay oo la isku geeyay waxay ka soo askumeen wax la dhaho candlestick. Waxa ku xiga marka wax la dhaho time frame. Time frame-ku waa tusiyaha ku tusinaya daqiiqadaha, saacadaha, maalmaha, toddobaadada iyo bilaha dhaqaaqa uu suuqu soo sameeyay wixii hore tagtadii hadda samaynayo oo ah taagantii samayna doono mustaqbalka oo ah timaadada buu ku tusinaya time frame-ku. Isagana qeexidiisu waa intaas. Waxaan guda galnaa waxa la dhaho pip. Waa maxay pip? Ogowna time frame-ku waa waqtiga uu suuqu soconayo. Candle-kan aad aragtay wuxuu soconayaa waqti. Casharada dambe ayagoo faahfaahsan cashar ku xiga aad arki doontaa. Candlesticks-ku waqti buu ku socdaa. Candle walba ama ha yaraado ama ha weynaado haddaad 1 hour tagtid micnaheedu waxa weeye candle walba waxa uu socday 1 saac. Haddaad tagtid 15 daqiiqo micnaheedu waxa weeye candle walba waxa uu socday 15 daqiiqo. Haddaad tagtid hal maalin candle walba waxa uu socdaa ama ha yaraado ama ha weynaado hal maalin. Haddii aad tagtid hal asbuuc candle walba wuxuu socday hal asbuuc ha yaraado ama ha weynaado 2 bil buu socday. Haddii aad tagtid bil candle walba wuxuu socday bil markaad bilisay micnaheedu oo dhan waxa weeye hal suuqa kan oo dhan candlesku wuxuu ku socdaan waa waqti. Time frame-kuna waa muhiim. Qeexidiisuna waa kaas. Pip-ku waa maxay? Waa dhaqaaqa uu suuqu sameeyo marka uu buy yahay ama uu sell yahay. Pips-ku waa dhaqaaqa uu suuqu sameeyo marka uu buy yahay ama sell yahay. Markuu suuqu kor u socdo oo buy yahay ama markuu hoos u socdo oo sell yahay dhaqaaqa uu sameeyaa la dhahaa. Waa maxay marka lot size? Lot size-ku waa lacagta cayiman ee aad go'aamisay in aad suuqa la gashid. Maxaa ka wada lacagta cayiman aad go'aamisay in aad suuqa la gashid? Haddii akoonkaaga $100 kugu jirtay
boqolka dollar dhan suuqa lama gelaysaa ama labada boqol oo dollar kugu jirta waxaa la gelaysaa 20 senti ama 50 senti oo ka mid ah tiri baan rabaa inaan suuqa la galo taasaa waxaa la dhahaa lot size lacagta kugu jirta balancegaaga ama akoonkaaga kugu jirta brokerkaaga inta aad rabtid inaad suuqa la gashid baa waxaa la dhahaa lot size waa maxay profitku waa faa'iido waa faa'iidada aad suuqa ka faa'iiday baa la dhahaa losskuna waa maxay waa khasaarada aad suuqa ku khasaartay oo jihadaad suuqa saxda ah u falaqaysa hadduu ku aado oo kugu dhaco TB-ga waxaa la dhahaa take profit ka maqlaysa waxa weeye waa faa'iidadaadii oo kugu dhacay yacni kana waa maxay waa loss oo waa khasaaradaadii waxaa maqli doontaa stop losskaas waa maxay waa meesha aad dhigatay khasaaraha profitkuna waa maxay waa meesha aad dhigatay targetka marka kan waxa raacaya hadhow TP oo ah take profit kana waxa raacaya stop oo stop loss waa inta aad rabtid inaad khasaartid numberka u samaysanaysid iyo take profit oo ah meesha aad rabtid faa'iidadaada marka iyagoo qeexan waa ka hadli doonaa balse si guud waa inaad u fahantid oo haddaa hadhow taqaanid profit waxa uu yahay oo hadhow waa fahmaysaa take profit waxa laga wado haddaa la fahantid loss waxa uu yahay waa fahmaysaa stop loss waxa laga wado marka kaas waa muhiim entry point waa maxay isaguna waa meesha cayiman aad suuqa ka gashay meesha cayiman aad suuqa ka gashay qiimaha suuqa aad ka gashay way aad ka gashay qiimaha lacagta euro USD aad meel cayiman qiimaha salkaas ka galay entry-ga meesha saxda entry-guna waa meesha suuqa ka galaysid ilaa iyo aad ka gaaraysid meesha uga baxaysid waa maxay waxa la dhaho sell short bearish saddexdan magac oo dhanba micnaheedu waxay u taagan yihiin iska iibin waa language-ka suuqa ku arki doontid luqadda ama terminology-ga kan sell waxay u taagan tahay waxa weeye waa iska iibin short waxay u taagan tahay iska iibin bearishna waxay u taagan tahay iska iibin saddexda tanba micnaheedu waxa weeye waa hal micne sell bayna isku noqonayaan laakiin magacyadan kala duwan baa laga dhagaha inay ku soo laabtaan ama uptrend wax la dhaho waa inaad fahmi kartid marka waxa leeyahay wax la dhaho downtrend baa ka wada yaa sell markuu yaa suuq waa downtrend sell short bearish downtrend waxaasoo dhan waxaa la isku dhahaa iska iibin buy baa maqlaysaa waxaa maqlaysaa long waxaa maqlaysaa short waxa leeyahay waxaa maqlaysaa leeyahay bullish buy long bullish uptrend waxaasoo dhan waxaa la dhahaa soo iibsasho oo markaa suuqa buy ku galaysid intan waxa weeye walaalayaal waa ereyada aad asaasiyaadka ama erey bixinta casharada asaasiyaadkan aad ku arki doontaa muuqaalada baa waxa rabaa marka ereyo fara badan dhagaha ku soo laabta inaad macnahooda taqaanid waa mahadsantihiin waxaan idin rajeynayaa guul iyo safarkiina quruxda badan inaad horumar ka gaartaan suuqa ka forex idinkoo ka aflaxaya Darwish Academy sirta ku jirta Darwish Academy ama aad ka faa'iideena in noloshiina wax badan ka bedesho tiina tan qoyskiina iyo bulshada idinku hareeraysan horumar baa idin rajeynaya saaxiibayaal guuleysta